وعنا ونكسن داودي الميلاد جوجتان باكونا سولا وادا ورئيسي قارة وأن لا يلانينو وسيركا أريمها ديبدا جمهورية الصوماليلاند مدن محمد بيحي يونس ويسو بوقشو كجوغي dalka Britain maalmahan bay isla markaasina socdaalkiisa aan ka wareysan doonay arrimaha la xiriira aqoonsiga ay bixisay uu bixiyay golaha deegaanka magaalada Sheffield ee gobolka England ee dalka Britain iyo sidoo kalena waxa uu wasiirka ka wareysan doonaa arrimaha la xiriira wasaaradda oo xilkeeda qabtay muddahaatan laga joogay in ku dhow 7 bilood saacad wasiir kusoo dhow barnaamijka mudashahan wareysiga gaarka ah ee سينا سو ستار تي في وان كاغا ما نقن روتينا نغير شو وريسك بحسو وشو وين ما بقولش هذه بعض ما سنتهي شانس كانت مانتي سينا تي في كستار هذه تجي بيقع او ما سنتهي لا ديال كور انت السعودال كان اوتيميد ايغلاند waxa looga ina joogtay marka hore magaalada dalka Australia ayaa joogtay waxa soo kacday England waxaad ka qayb gashay kulankii codbixinta ee golaha Sheffield uu sameeyay Somaliland muhiimad intee laga ilahay darantan inaad timaadaan wallahi aniga igu muuqato waxa ahayd muhiimad aad u weyn saad la socoto waxaan markaa safarkaygu uu baxay oo ahaa in Australia tago taasoo balan kula waxaan wasaaradda khaarijiga trade-ka jaamacadaha community-ga oo doonayna aan wargelino aan warqasino horumarka ka socda Soomaaliya hase yeeshee markii aan ogaaday in ay maalinta dhacayso labada bisha maalinta Arbacada ee April vote-kii lagu aqoonsanayay taraafka Soomaaliya ee magaalada Sheffield golaha deegaanka waxay noqotay daruuri inaan joogo anigoo ah wasiir khaarijiga waddanka Soomaaliland oo maalinta weyn ee taariikhiga ah ee qiimaha weyn ee qadarinta leh ee dadka reer Sheffield ku goosteen inay taraafka Soomaaliya inaan goobjoog u ahaado كندا. وأنتني محيك بدليس سياسة دلك UK مركز الله يقول واحد يقصون هاي سومالان يو حيل كده حيل دولة بريطن واحد من السياسة اللي بوجيلان أي وقت هاي تذكر سائر ذلك مركز الله إيجي اللي يقول سوماليا وهاي دولة بريطن وشيكتها هنا مرور بتاعي سنتها هاي جيرتها سوماليا يودي جير كده لنا إذا كده لما عملان سومالان هان marka arintani maxay saameyn ku yeelanaysaa marka loo eego siyaasadda dalka Britain maadaama golo yahay golo magaalo aan ahayn sida loo soo yahay golada arrimaha dibadda go'aamiya والله هذا الصدر السعودي طبعا علاقات كالصوماليلاند وبريطن وعلاقات تاريخية وعلاقات هذه مقصدة أو دولتي لكم يسنشفتي الدجال دي معها هذا الدجال كي كوذا مكيلا ولا كقريب الله تفرق بين أمر الصوماليلاند هذه بيروكا وبريطن ayagoo ka dagaalamayo dhinaca kula dagaalamayo dadka Britain ayagoo la dagaalamayo dhinaca taagan marka wadada cilaaqaad dheer lahayn magaalada Sheffield sida loo socotana dad fara badan oo Somaliland ayaa yimid si uga shaqeeyaan steel industry-ga markii dagaalkii labada caalamku uu joogsaday oo shaqaale looga baxday marka waa wadan aan dawladda Ingiriisku abayaashii badan deganayeen cilaaqaadna leedahay وارد أو علاقات كالصوماليلاند الصومالية ننقب عنان جعلها علاقات كعنش الصوماليلاند بريطن ووحى ربع عنان ما ربضنا نسخ خلاص ما هي سيرتها سيء وكم هاي حاجة متراضة بس هي صعود كان يفوتيدين لكن واحد ربنا وين السيان فبربنا بين السيان وظهر هذا ضمن وصورة والله كل وزراء ده لكن ما أنتم كذا عضي وين شكل كذا عضي Sheffield waa magaalo progressive oo magaalooyinka ugu horumarsan kamida markay noqoto xagga ideas-ka iyo afkaarta waa magaalo taariikh ku leh inay xagga arrimaha international ka qayb gasho waa magaalo ka qayb gashay oo hormood u ahayd arrinkii apartheid-ka ama midabka South Africa iyo Nelson Mandela soo deyntiisii kuna guuleystay marka waxaanu qabnaa waa symbolic waa arrin aad u weyn wuu bilaabmay waxaan qabnaa inay magaalooyinka kale Ingiriiska ku dayan doonaan caalamka intiisa kale ku dayan doonto marka waxay annaka noo tahay reer Somaliland aan qiimo leh oo qadarin leh maaha inay ictiraafeen because Somaliland ay sheegayeen waxay arkeen Somaliland inay buuxisay shuruudihii dawladda lahaan jirtay ee xuduud leh oo dawlad leh oo lacagteedii leh oo passportkeedii leh oo ciidamadeedii leh oo policekeedii leh
doorashooyin ka dhaceen oo dimuqraadiga watay saacadu inta bay dabcan leedahay awgeed inta sheegto dhan xubnahan baarlamaanka ee dalkan Britain iyaga kuwa siyaasadda arrimaha dibadda saameynta weyn ku leh way qirayaan in Somaliland waxyaabaha soo qabsatay markii laga yimaado golaha deegaanka Sheffield laakiin halka ay arrintu taala waa House of Commons golaha wakiilada ama baarlamaanka ee dalkan Britain iyo wasaaradda arrimaha dibadda taa iyada idinku maxaad ka qaban kartaa waxaan ka qaban kartaa mar haddii Sheffield taarin bulshada Somaliland Sheffield waxaa horta ka qayb galo hormuudka ahaa parliamentarianski Paul iyo Clive labaduba laba nin oo aad iyo aad u taageeraya Somaliland weeye niman badan oo parliamentarians ama hada Cleveland ama Birmingham magaalada kale ka joogaan aad u support karayaan waanu la kulannay waxaan ku jiraa inaan qodida Somaliland baarlamaanka iyo House of Commons aan geyno oo nimankaasi ballan ka qaadan in ay magaalooyinka kale kuwada kale liberalski kuwa حسابت كلام الله حلا سي قضية السومالية ليش لوكي وتركوا عن قبنا إني حركة كجود بتوتم السومالية واحد اللي هنشرتي إنه البرلمان هو قولوا برلمان أو إسلا برلمان كتبريتن كترسن أو تاجرة وحكم إذا هني كلام هذا ألان مايكل ويسوق اللي يسوق دورن شري مقالة كارديف حسياتن هلكا كتجي نقضينا كوميشنر أما تليس كاردينا عاد بوليس كيشيو ويلز حقيقة كنت بحبنيه نوع هاي برلمان كي وحدة لقبن شري مرة داني مرة كلا رأي بكوش فيل أنا كسو حاضرين حفلة دين تالله كوي كلا يجو برلمان كميتها ويكون بيجنتين مالين توشير وينها وقبضوا أما دود وين عضوا أربعة كلهم horta sidaad ula socotay nimanka parliamentarianska xataa kuwa Sheffield laftooda maalinta lafteedii kama soo qayb galin shalayteen oo yimaadeen waxay uga soo qayb gali waayeen maalinta arbacada sidaad ula socotay bisha ugu horeysa bilka sasare maaragtay way fadhiistaan marka maadaama issues fara badan oo khaasatan ku lug lahaa xagga energy iyo waxyaabaha inkaas parliamentarianska Ingiriiska oo dhan shirki ayay u joogeen oo markaa midkoodna ma iman kareen hase yeeshee xiriirkii waa noo socdaa waa la kulanay waxaan ku tali jiraa kuwa kale ee support gareyn jiray waxaan tali jiray khaasatan ninka Alan Badali laftiisa iyo kuwa kale fara badan ma inay ayagu dadaalkii bilaabeen inay magaalooyinkooda taas oo kale ka sameeyaan marka waxaan filaynaa community-geena jooga Somaliland ee magaalooyinka kala gedisan jooga gabi ahaantood inay hawsha ku dhaqaaqi doonaan oo support xoog la siin doonaan wada haday magaalada dadka aan ka soo xaadirin sidoo kale waxa kamid ah gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland Abdulrahman Maxamed Abdullahi Ciro oo joogay magaalada Birmingham oo wax yar u jirta magaalada lafaanteeda sawir nooc mid bixin sama sidoo aragtaa waa in gudoomiyihina aanu idin la joogin بعد إذا كنتي حسبي إني دولة أو كلية يبرشدي رشة في وقرأ كوكو مدار إنترنت لو كان بس هذا بالماتيريال كلا لو يشوفه تعرف صوته طبعاً إنه بالماتيريال أي يأخذ بيده يشوفه وكسوق يبقى لو متخذو كهذا مركان كهذا يأخذ بيده يشوفه مركي تدخل لها بينا كلا ضربة كهذا مركا هو يشوفه دت كلا بالماتيريال زكما كوبناي حزبي كلية أو كلية أما دولة أو كلية حسابت كلية مسؤوليين parliamentarians في عين مركورت لبنان أو كلا أذي parliamentarians كسوماليلاند وكسوق يقرأ هالسيء شيء ده وحيابه قدوميها برلمان كوي ما ويرونتي ورما هيو وما رام حدين مركار رهان تدهالك كي وتشوي كروه ما ويا سأسمع السبب على سير جديد سوور ما بين كتاب مثل هذا هاي والله بعد waxay ku qurux badan su'aasha isaga weydiiso dabcan waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin qadarin leh waa maalin qof kasta oo Somaliland aad iyo aad u jecel in qof kasta uu joogo marka wuxuu u iman waayay waxaan jeclaan lahaa su'aasha weydiiso war ummadda reer Somaliland ka siiso wuxuu idinku dareen nooc ka qaadateen wallahi dareenku dabcan qof kasta uu arko waxa la tahay u muuqataa marka waxaan ku talin lahaa dabcan speaker kii baarlamaanka Soomaaliland oo la najow Sheffield maalintaas ka dhacay hawsha ka soo qayb gali waayay tin picture ka bixinaysa tin qof kasta oo muuqata laakiin su'aasha waxa la taansiga gaar ahaan weydiis wada hadan su'aal kale ka weydiiyo nin kamida xisbiga oo cid waliba hoggaanka gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga Ali Guri waxa uu ku tilmaamay in iska ahayd siyaasad duulaana oo idinku wasiir ahaan iyo xukuumadaha ku timaadeen Sheffield oo aan u baahnayn ilaa heerka aad ku soo qaadaan ama aad ku timaadaan ama kaga qayb gashaanba hadalka noocaas ee ka waran isla xisbiga wiciido gudoomiyihiisa والله ده طبعا احزابته هي اللي ممكن احزابته
afkooda ku hadlaya daayigista waxay oranayaan hase yeeshee aniga waxay ugu muuqataa inay maalin aad iyo aad u wanahay waxaan filayaa inaan ahay probably maanta dadka Somaliland jooga dadka ugu khibrad badan ama qofka ugu khibrad badan ama dadka ugu khibrad badan markay noqoto arrimaha caalamka iyo international maadaama aan afartan sano kusoo jiray businesska ana kana gaarafka ugu sareysa waxaan u arkaa inay tahay maalin weyn maalin qadarin leh maalin loo baahnaa inuu qof kasta oo Somalilander ah oo qarannimada eegaya oo markaynu ka gudubno qabiilka iyo axsaabta oo aynu qarannimo iyo ummadnimo iyo Somalilandnimo aynu eegayno inuu qof kasta halkaa joogo ayay muhiim ahay secretary of laakiin dadka qaar waxay arkeen fursad idinkoo kale idin hay dawladda aad ka dhigtaan ictiraafkii heshaan oo kale oo idinku waxaan wadaan oo kale hambalooyinka isku soo dhacayo kale dadka waxa lagu tilmaamay in dawladdu lug ku lahayd arrintan marka idinku lug miyaad ku lahaydeen arrintan ma anagu dawladdu lug dabcan dawladda reer Somaliland wax kasta oo guula oo u timaada aad iyo aad ugu farxaysaa shacbiga reer Somaliland sidaas la qabaa dareenka Somaliland maanta yaala mid aad iyo aad weyn buu ahaa qofka maanta u arki waayo dareenkaas inuu dareen qiimo leh ummadda u yahay waa qof aan oran karo isaga hawshaas u taada waday aanu noqono dhinaca wasaaradda waxaad sidaan sheegay muddo ilaa 7 bilood baad wasiir ahayd aad la wareegtay wasaaraddan adigoo runtiina lagu tuhmayo in way aragnimadu leedahay arrintan Somaliland ay u baahnay maxaad kala kulantay wasaaraddii طبعا ده ساد ولا صعوته وزارة وزارة ير ووزارة أباهن يعني كوبيو ووزارة أباهن يعني تقال هذا اللي خرجيه ووزارة أباهن يعني خبراء فرابضنا يقشر إنسان كانوا هسه شو حنقبلنا وحيابة فرابضنا أنت يعني شغلين قبلنا أو أي هرمود كتهاي أريمها فرابضنا يقولوا له نبي جريد نسيحوجنا أنك يحاجة دقالها إني من بدنا وشركة أكينة وايو ما أنت عالم كا وزارة الخارجية وحوا وين قطعنا حكمت على economic diplomacy ودن كده قالوا بهاي marka ay noqoto hawma sharikadaha batroolka ama ha noqoto dekada ama ha noqoto kuwaha ama ha noqoto jidadka ama cilaaqaadka faraha badan ee maanta aan la sameeyay dawladda fara badan oo jaarka Uganda ka mid tahay Kenya maanta furaysa xafiis for the first time aan ku guuleysanay inay ogolaadaan in xafiis ama ka furtaan aan kooda ka furano Turkiga xafiis ka furanaya Djibouti xafiiskeeda soo furaysay marka passport Kenya marka arrimo fara badan dawladda Ethiopia maanta aan ku magacawnay afar wasiir inaan kala shaqeyno xagga dhaqaalaha iyo nabadgelyada oo prime minister-ka iyo president-ka ay isu geeyeen ay sarkaan marka runtii hawl badan waa noo taala waxna qabiyo waa naga yihiin laakiin dadaal wixii daan laakiin muddada 7 bilood yani adigu maxamed ahaan maxaa sidoo wad ku soo kordhisay marka laga yimaado waxyaabaha guud ee isku u furfurmay wallahi waxaan isleeyahay waxyaabo badan baad ku soo kordhisay oo contact nasadaan la socota caalamka u leeyahay imika bilmathal guusha aanu ka keenay Kenya oo kale ee ka dhalato oo aanu ku guuleysanay inay xafiis noo furaan official ah oo ayaa xafiis ka fursan laakiin xafiiskaas muddo la sugay labaantii هل السوقي مكون دماغ وأنت السوقي وأنا سيقول لك أنا وقتي قبل إنه جوان تعالى إنه وقتي دماغه ورا ورا دماغه هسه الشيء حنا حكوا فرح سنة يمكن ورا دماغه والله كل أنا صار وصل توزيع من حوينا حجبتي بالله محمد قاعدين بس بركة والله ما كحوله بدنا طبعا الوزارة دي وبدو قبنا يسا إذا نروح على ذكر بعدات هند قول دينا نتاس حافظ هنا وناق ومطر وهو اللي بدنا له لكن هذا مسؤول waxay la yiraahdaa mid ma qat cilaaq dalbay qofkii xil ila umada aniga ana arin daruuri aniga ugu dhawo furfuri kara in aad wax loo weydiiyo kulli wax bunta ma waa muhiim hadeenu eegno in wasaaradda hore waxa wasiirkii ka horreeyay la oran jiray wasiir kaligii socdo oo hadiyo goolaale safarkiisuna badan adiguna socodka ugu badan yahay bariyaha saacad wasiir inta badanna waxa aad u socotaa waliba cagtaada ku badnayd magaaladan aynu joogno London dalkan Britain waxaad ka bedeshay hanaankii hore isagu waa sidii hore uma ku socotaa marka loo eego qaabka wasaaraddu ay u shaqeynayso iyo in la yiraahdo qof kuloo kaligii socda wasaaraddu saad la socoto halka dhowr goor baan arrimaha noo nimid dad badan bay la socday waxaan u dhimay markii ugu horeysay ilaan arrinkii weynaa ee muhiimka ah shidaalkii la joojiyay ama wax ka qaban waayay wasiirka معلنت هكذا من الله في يعني وزير كمان في وزير كثير يعني إذا طبعا السفير في الصومال إنه الله سبحانه طبعا وماد ولودي هاي الشركة عن غير إنه حلقوا من وزير كقابل ساري مع في سيمنز
waxaan la kulmay wasiirka security qaabilsan baarlamenteena islaan baa la kulmay marka dadaalkaygu waxa weeyaan inta badan waxaan kor la kulmay sharci badan oo intaas ku Soomaaliland marka imaashaan halkan imaado imaashaan hawl ku lug leh aananu qabna inay wax badan maanta Soomaaliland ka bedesho ama xag dhaqaale ama xag warbixin ummadda reer Soomaaliland wax qabatay iyo iibka qadiyada Soomaaliland waxaad sheegtay in aad qaadateen siyaasadda qaladaad ku sheegtay economic diplomacy ama siyaasad dhinaca dhaqaalaha Soomaaliland dan dhaqaale oo laga qabo awgeed in ay ku yeelato ictiraaf ama ay ku yeelato fursad xiriir dawladeed taa marka laga hadlayo Soomaaliland nidaam bay leedahay nidaamkaas oo dhan shirkad kasta iyo qolo kasta oo keentaan oo waddanka doonaysa inay wax ka maalgashato ama ay dhaqaalaha dalka yaala sida kheyraadka kala in baarlamaanka la mariyo ilaa intii xukuumaddan ay jirtay shirarkii sida shirkadda Genel oo kale iyo shirkado badan oo ay waddanka la keenay wax baarlamaanka la soo mariyay ma jiro marka miyaad ka gudubteen siyaasaddii ahayd in baarlamaanka qaranka lala tashado ma waa muhiim waa la socotaa dowladda Soomaaliland waqti qarsoodiyaha ay wataan ma jirto sharciga aanu keenayna markay hawshu meel gaadho dabcan in baarlamaanka la keeno waa waajib waanu filanaa in la geyn doono ayagiyo arrimaha kale aan wadno si ay dadka shacbiga iyo Soomaaliland iyo communitieskeeda iyo dadka baarlamaanka ay ogaadaan marka kamaanu gudbin waana qadiyad noo taala waana deegayn doonaa waxyaabaha ku lug leh laakiin goor ma la geynaya ma goor marka shirkadinta hawl galeen intaasoo kun oo hektar ay baabiyeen ay waxbaan ka baaraynaa sida shirkaddan Genel oo kale dibadna markay carqalada yimaadeen dalka ka baxeen deegaan dhan ku baabay marka goor ma baarlamaanka loo geeyay inay baarlamaanka loo geeyay inta ka horeysa hawsha baan la qaban horta saddex wala socoto طبعا Genel waa shirkad Ingiriiska Turkiga leeyihiin way yimaadeen hawlo ma joogaan waxay yimaadeen hortay baa yimaadeen waddanka waxaan la soo kulmay markaan shaqada bilaabay iyagoo ka tagayaan طبعا waxay noogu muuqatay inaan dalka dib u joojino waxyaabaha ay uga tageenna waxa u muhiimsanaa waa security waxaad la socotaa inaan qoranay haddaan nahay Somaliland niman waaweyn oo khubaro ah oo Major General John Holmes leeyahay inuu report ka sameeyo in warkii ay bixiyeen ahaa security problems baa jira aanay security jirin oo nimanka isla garanayaan inaan noqon samaysan oil protection unit askar Somaliland oo ilaalin doonto shirkadaha marka hawshii ay yiraahdeen waan soo noqonayna dib uga noqdeen kuwa kala badan ay ku soo dhiiradeen marka dabcan si aad u sheegtay inaan baarlamaanka galno weeye waa in la geeyo waana mideen doona insha Allah waana tala maaragtay meesha ku jirta way dhinacii wada hadalkii Soomaaliya iyo Somaliland xabo ku dambeeyay sidoo la socoto de saddex bilood horteed waxaan ku kulnay Turkiga oo markii walaasaan waan ka qayb galay shirarka Soomaaliya Somaliland waxaan qabaa shir fiican oo noo dhahay shir aad iyo aad u weyn buu ahaa waxaan ku soo kordhinay oo kuwa mararka kale ka gedisan 5 iyo 7 qof ee maamulayay shirka waana gudoomiyahooda ahay Ethiopia shan joognay laba sho tabaran ku qaadanay shan anaku isjafaynay anakoo diyaar oo habaysan baan Turkiga tagnay waxyaabo waaweyn oo ka soo raadinay waxaan u aragnay inay taxawul hadalkaasi muhiim oo aanu inaanu sii wadnaana ay daruuri tahay waxaanu goosanay kana sameeyay secretariat oo qolaba ninkan tawaano appoint kareen qof kasta iyo koodiga kaayigiiba Turkiga tagayaan qoladii aviation ka arrinkeeda waanu dhamaanay maanta waxay joogaan Istanbul oo waxa inay tagaan bisha koodeeda waa la filayay waxaan tagay inay joogaan halkaa waxaan ku guuleysano markii ugu horreysay ka dhacday taariikhiyan intii la wada hadlayay in arrinta suuqaanu keeno in laga wada hadlo walow ay dhibaato badan ay qabso diideen inta badan laakiin ay ogolaadeen oo qirteen in dhibaato dadka reer Soomaaliland loo geystay acknowledgement uu ka dhacay halkan aan ka sii wada doono waxay ogolaadeen oo kale inaanu hay'adaha caalamka la xiriiri doono markaan iyadoo qoran iigaad u qoray marka waxaan qabaa inay wada hadalaasi dariiqa sax ah ay dawladana taageertay waata laakiin say isku qabanayaan labada arrimood in arrintan Somaliland iyo Soomaaliya ee wada xaajadka Turkiga waxa lagu tilmaamay inay tahay laba jeeniyo mid dhinaciisa oo dhaqaaqay Somaliland marka idinku ka qayb gashay shirka waxa loo dhaqaaqdaan oo sheegtaan in idinku qadiyadiin iyo Somaliland iyo meel marinaysa halka Soomaaliya iyagu madaxdoodu yiraahdaan midnimada iyo Soomaaliya wada hadlayna arrintan waxa la sheegay in ay gelisay mugdi halka loo socdo marka Soomaaliya mowqifkeedu waa cali yahay idina waa cali yahay marka ma jiidan ku jiida gacmadaalis ku jirtaan maya dabcan ay marka gacanta wax soo noqonaysa meel markay gasho waa soo dhigay ayaa lagu ma soo rufto
Somaliland saddex xal sano gaar taagay waana reality jirto oo on the ground waa de facto independence iskeeda oo Soomaaliya wixii dawladda lahayd government waxa ka maqan wax recognition Soomaaliya inteedii hore qasba ka taagna dibata taagna dawlad la hadla ma jirin maanta ugu horeysa dawladdu ugu horeysay ee u eeg wax dawladda oo loo oran karo wallahi hadli kara la hadaladu waa noo bilaabmay marka dhowr goor oo horaan inta aragnay طبعا laga yaabaa in ay impression ka bixiyaan laakiin reality-ga ay soo yimid markaan muddo israel waxa weeye waan tagaynaa waa mahadsantii awal xor baan nahay annaka idin nimid imikana meel aan ku soo birino gubanaysa iman mayno dantayadii shacbigayga waa goostaan magaal isu taagno marka hadda shacbi ka noqonaya ummadda ma jirto ayana way ogsan yihiin haddii ay hore u gudboodaan dad dariiqo kala noo furan laakiin halka la leeyahay dhexdhexaadinaysa waddanka Turkiga dalal dhan oo ay ka mid yihiin dalka Turkiga ka mid yahay baa jiro mowqif ugu cad yahay kana soo horjeedin Somaliland ay Soomaaliya ka goobo marka mar hadda dalka wada xaajid ku leeyahay marka hore ma dhexdhexaad ahayn sidaad wuxuu leeyahay cilaaqaadka Somaliland iyo Turkiga iyo Soomaaliya ka dhaxeeya waa cilaaqaad facilitation annaka wada hadlayna waxay soo gaaraan markaan u baahno haddii aan isqabsano oo arrinka xasuuq oo kale aan isku qabsano laakiin normal dadka wada hadlaya waa annaka ayagu platformka iyo meesha bayibana siiyaan oo kooda hadlayeen hubbalkiisa laakiin hadallada wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga soo baxda way ka duwan tahay taasoo ma kama garisnaa wasaaradda Turkigu ay ku mahadsan yihiin inay horta annakoo siman oo laba wadan oo kala gedisana ay office iyo platform aan kooda hadlo marka horta uu wada hadlayna dee laba qof oo kale aan sinayn laba dawladood oo siman oo laba qadidood kala wata oo isu yimid oo doonaysa in hawlaheeda la masalan marka horta Turkigu qadiyadoodu waxa official ah oo ay oran karaan talaan rabnaa mid maaha waxay facilitation baynu sameeyay suuqa ay keenaan aan qadiyadu wada ka dhaxaysa su'aal baan ka weydiinaya dadku inta badan isweydiiyaan Soomaaliland markay Soomaaliland la xaajoonayso waxay u soo dirtaa wasiirka arrimaha dibadda adiga iyo wasiirka arrimaha dibadda adiguna arrimaha gudaha ayay soo dirtaa adiguna xataa wasiirka arrimaha dibadda sawir nooc ma dartaa ka bixin lahayd in wasiir arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu la xaajoonayo wasaaraddiisa iyo hay'adiisa u sameeyo sidaad ula socoto wasiirada dibadda ee hore ee jiray niman reer Somaliland anaguna wasiirka Somaliland hor fadhiisanay waa qadiyad clear qofka reer Somaliland ama wasiir khaarijiga ayaana dawladda Soomaaliya ana uma aragteen in hor fadhiistaan anana uma aragno marka ayagii u taala qofka soo diranayaan maadaama aan qofkii wasiir khaarijiga ay u arkayaan qudiyadu la xajir yahay ama xageena ka yimid anaka qudiyadu aan aragno in xageena ka yimid xagooda jooga waxay garteen labada dambada ku heshiiyeen in aan qof aan ahayn oo dadka xamara oo reer South oo Soomaaliya ka socda una soo hor fadhiisto way qofka aan la hadlayna waa qofka sidoo ragtan arrintan ay markastaba saad sheegtay wasiirka arrimaha dibadda yahay ka soo jeeda Somaliland ay Soomaaliya loo magacaabo imika waxa wasiirkan inaad soo wada shaqayseen aragti nooc ka qabtaan wallahi dad fara badan oo reer Somaliland oo xamartiga way jiraan dad fara badan oo reer Somaliland oo wasaaradda laga way jiraan kuwaas ayaga u taala qofka dadkiisa intuu ka tago Soomaaliya ku biirada waa arrin qofka shakhsiga ah khuseeya marka hada waa wax shakhsi oo qofkaas tala u taala intuu Somaliland leeyahay bay shaqo ku leedahay waxa ugu dambeystii waxaan ku weydiinayaa dhinaca isbeddelka wasaaraddaada toddobada bilood wax isbeddelo dhinaca safiirada dibadaha jira iyo wakiilada Somaliland meel kasta ay joogaanba waxaad ka beddeshay ma jirto dadka reer Somaliland qaarkood waxay daliil bay muujiyaan shakhsiyaad ku magacaaban مثلا safiiro oo haddana aan u gacan banaanayn oo laga yaabo inay iska joogaan magaalooyin ka baxsan meel diblomaasiyaddu ay ka socoto iyo dad fara badan oo loo magacaabay inay yihiin safiiro Somaliland meel kala duwan hase ahaatee mid dhalaan ahayn arrintaa iyada maxaad ka qabatay toddoba bilood la sugtay toddoba bilood ee xubin bedel weyn طبعا يصير marka qofku meel cusub yimaado ويمد ugu horeysa inuu ka baxto dalkii inuu dadkii barto inuu safaaradii barto inuu ashqaas u shaqeynaysa barto inuu waqti isa siiyo hearsay waxaan nahay suuqa laga sheekay طبعا inuu wasiirka wax u shaqeeyo saad ugu socotana daawo may qof
shaqa maanta cusubta halka ugu sareysa ayaa United Nations ka gaaray asida secretary general baa 29,000 oo qof ay hoos shaqayn jiray Darfur budget 2 bilyan maamulay shaqaale fara badan baa hoos yaacay marka maamulka dadka iyo shaqaalahooda waa sidaas la baaratay banka Afrika marka run ahaantii waxaan jecelahay inaan waqtiisa siiyo darso oo aan agaado safaradan yaan u baahanahay maxay qabatay evaluation keeda performance keeda shakhsiga barashadiisa marka dabcan waxaan qabaa in aan samayn doono ama qaab cusub abuuri doono oo dad badan oo horaan ugu jirnaa ku soo keeni doono laakiin waa hawl dabcan dee taalo oo doonaya inaan marka ugu horeysa in ku qanco naftayda inaan meeshii bartay dadkii bartay safaaradihii bartay ashqaastii bartay aan waxaan bedel samaynaysa السؤال كله ده وصلت أنا كويدين لا محمد هم مو مدح بناية بدك سويدين يعني إسبدل كانوا عاصم ها محمد هو مدح بناية سيا كمسؤولة وزارة سيا حوشي ذا كمسؤولة مسؤولية ذا حنو يساروي مسؤولية تسهل لك عشان مش أي تحوي مركا وحن كل شيء يا إنا أوجهته إنا نوسير وين أو رئيس ماليلاند أو مدح بنان أو تهدي سجون كرا شرف يا مدح عن مدة وجوجا شرف يا مدح عن مدح بنان كايستا مركا واحد أنا بقول كريم وزارة فرنتن سومالنا تحلك وقبطي أساد شكتات كدورتي شغل كوين ويتصلون نقف الكوسي من أي نوع عالم مرنا مقعتها محل من التستري وقوان كانت قاعدة وخلدنا مي كنهاتي هابينا مقوح وحانا من سنة هي إن ثلاثة يوفي عن نور شيء كاري فترة سلام مقنع عالم كبير هو بقى شقي عالم كله بعنوري وحن أركي ما أنت أنا تاريخ المركز قوم بس كي يوم تدعو شقيه وأنت أنا اللي من contribution كجيستو حبي بانك واحد مسؤولية ذا يتحرى يقان كان جاري إلى هاي نقطة اعتراف فيها وشيء ده ممكن إنك صار اليوم كي قدام بيصير لك ما تشالك ويدي من أنا كان مار مكان أنا كتبوا طبعا ده كيس إن داوني سويدين يعني سوق أنا كوجرتها صحافة من قرطو حسبي كلمي الوكسين شلوين حسبي كلمي وأد ورفتي المشرح نمدينا أي رفتي خلافاتكو وحقرصون هذا أما هم مقضي لدرين يوجلو أو أي مرقو تايين حسبي كلمية دولتي ساعات كمي تايين وقبسين كيلو أي شلويني وروح صوبح أي شيء جيه إن أدو شرحت هاي شجدا مشرح نمدي حسبي كلمية وبدلي دونتو مقع وداكتان دينا عمرك الله يقول دينا عبيحي مقع للي أردنا بحث كي تشوف مني وحل يالا بحكيش ما بشرو قدومي هو موسى بيحي عبدي إساقا لقو مقع عبيمي إساقا أنا إن قدومي وعرري أنا مليه قدومي ما مشرح مدحوين لمدى حسبي كلمية والله وكلا شغل قدومي مدي قرني والله وطن شلو كلن كي قدومي تاي ويدي ما كان مرشح مدحوين نمدى مثل مشرح نمدى مدحوينها ما بوقت كان حاضر horta waxaan doonayaa kuu sheego wax khilaafo hoo badan oo xisbiga kulbiya dhexdeeda ma jiro sidaad ula socoto waxaan ahaa guddoomiyihiisa waxaan bixinta khilaafaadani way yimaadeen waanu xalinay ilaahay baa mahadle arrinkii waanu dhammaynay waa lagu heshiiyey qoladii qabanqaabadu hawshoodu way ka soo baxday hawsha way socotaa marka horta khilaafkii jiray waa dhab oo dib bay u dhacday mariya saddex waana dhici kartaa dawladda waxaana shacbiga dimuqraadi oo dad way isqaban karaan waxay kulmiya dadana waa xisbi dimuqraadiya afkaartu kala gedisan tahay la wasiye kala yeelan karta laakiin arrintii waanu dhammaynay bibka shirkii qabanqaabadu uu bilaabmay inay qoladii qabanqaabadu hawshoodii qabato ergooyinkii hawshoodii la qabo weli lama ogeyn baan malaynayaa maalintii shirka la qabanayay marka hadda shirka wax kasoo baxay dhigi doona insha allah way marka adigu ma sharaxin miya marka markay su-aashaasi waqtigeeda timaado waynu ka jawaabi doonaa laakiin waqtigan xaadirka ah madaxweyne jira dowlad baa jirta kulmiya shirka uu qabsanayo shirkii ergooyinkeeda shir uu ka soo baxayay madaxweyne iyo noloshiisuna ma aha marka waqtigiisa ma joogno ka waran haddii madaxweyne sirayna ma soo sharaxayan mar labaad waa xaq buu leeyahay sharcigana waa u baneeyaa waana u banaan tahay inay laba sanood inuu sharci karo marka dee waa wax laakiin haddii la soo jeediyo ka waran inaan lagula tartamin taasaa arrintu inuu soo sharaxo
dadka xusbiga kulmiye ka tirsan ma diidana laakiin waxa leeyahay tartanka dhinaca in duuduub wixii lagu bixiyo horta iska theory waxaynu ka hadlaynaa oo run ahaantii wax dee aan weli aanaynu garanaysa sida wuxuu dhacay inaynu predictions ku sameynaa waqtigaana waa saadaal waxaynu wadnaa marka intaanu saadaal ka bixin waxaan filaya inay wanaagsan inaynu sugno markii waqtigeedu yimaado su-aashaasi markaasay habboon tahay aan filaya dhinaca xidhiidhka xisbiyada kale mucaaridka ka waran sidii طبعا ديمقراطية أنه كي بيننا ذاتك أما شيء فيش هالنقطة أما international institution ثاني نقطة عوية وطن ديمقراطي أنه هاي أحزاب معارضة عشرة ومهم إن أحزاب معارضة شرطة ومهم إن أحزاب تأسيس هاي قدرات وحنا هاي نتكلماتو على تمامية ما إن الصحافة دي بتجار كاي إذا كتنا مسات حكومة غيران كده حيصير لفتيدنا وحوي عشان طبعا أنا واحد قبا إني ومدح بناي هنا إني نوشة عن وحي عن توسينها وأنا هذا هي وزير الخارجية وفيصل عبد الرحمن أركو أريما عنو بهانا إن توسيو وحق وزارة إذا هذه أظن شو دوينها وعمدتني مدح لها متي أيضا ده صحافتها الوعي ثمين هل إن لقيت هذا الوضع حاوش على هالكاتي كله هالكاتي كتوسي فوحي بكوتشو وأنا أبغى له إله إذا كذا ولقيت معه marka ruuxantii dad loo baahan inuu sharaa'idka xal isku hayno laakiin waxaan jeclaan lahaa in wixii tilmaan ama wanaag ama horumar ah oo wadanka toosinaya oo dabcan wax taraya inay sameeyaan wataayad iyo dad maasantahay runtii su'aalo badan baa lagu weydiin karaa waana ka mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga na siisay waxaan ku rajaynayaa in aad ugu guulaysato hawsha soo baxday deelada waa tahay dawdeed waraysigii qaarkaan la yeelinay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Biixi Yunis oo socdaal ku joogay dalka Britain intaas ayaan ku soo koobay admaasantiin sidaas iyo nabadgelyo